ciidanka dib u xuraynta deegaanka oo garab iyo gaashaan ciidan ka helaya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira ciidanka kumaandooska ee danab iyo sidoo kale ciidanka guutada shanaad qaybta 27aad ee xoogga dalka ayaa goordhow waxa ay la wareegeen deegaano hoos yimaada degmooyinka Buulo Burde iyo sidoo kale Moqokori ee gobolka Hiiraan ka tirsan ciidanka la wareegay deegaanadan oo shabaab muhiimka u ahaa ayaa waxa ay ka soo ruqaansadeen aronimadii hore ee saakay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan deegaanada ciidanka dib u xuraynta iyo kuwa dawladda ee isgarabshanaya shabaab ay kala wareegeen daawadayaal waxa kamid ah deegaanka Moora Ari Tardo Qandho iyo sidoo kale deegaano kale oo shabaabku ay fariisin muhiim ah u ahayd isla markaana dadka ay lacag ugu qaadi jireen sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka saraakiil ay kamid yihiin Cornel Cali Dhuux Cabdi Mahad la taliya ku xigeenka ciidanka booliska ee gobolka Banaadir Cornel Cabdullaahi Barre Cilmi iyo sidoo kale taliye Xasan Tuure oo saraakiisha danab ee Soomaaliya gaar ahaan howlgalka Hiiraan ka wada kamidka ah ayaa gacanta waxay ku dhigeen deegaanada aan idin soo sheegay ee kala ah Tardo Moora Ari iyo sidoo kale kuwa kale oo ay kamid tahay ceel Qooxle iyo sidoo kale deegaano kale oo aad u fara badan ciidankan oo ahaa kuwa boqolaal ah isla markaana adeegsanaya xeelad ciidan ayaa waxa ay ka soo ruqaansadeen degmada Maxaas waxaana ciidanka ay weerar dhowr jaha ah ay ku qaadeen deegaanada shabaabka ay ku sugnaayeen ee aan idin soo sheegnay ma jiraan wax dagaal ah oo ciidanka dib u xuraynta iyo sidoo kale kuwa ee dawladda federaalka Soomaaliya ay kala kulmeen dhanka al-shabaab oo ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Qandho Tardo Moora Ari kuwaas oo shabaabku ay dhaqdhaqaaqay ciidan oo ay uga soo horjeedaan ciidanka dib u xuraynta iyo kuwa dawladda ay ka wadeen isla markaana ciidamo aad u fara badan ay ku soo daabulayeen muddooyinkii ugu dambeeyay saraakiisha horkacaysa ciidankan la wareegay deegaanadaasi ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka ay wadaan ay si laba jibaari doonaan isla markaana maalmaha soo aadan la isku furi doono gacantana ciidanka dib u xuraynta iyo kuwa dawladda ay ku dhigi doonaan deegaanada u dhaxeeya gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe kuwaas oo ciidanka dib u xuraynta iyo kuwa dawladda hadii ay la wareegaan ka dhigan in al-shabaab goobo istiraatiiji ah iyo deegaano gacan ku hayntooda muhiim u ahaa ee laga la wareegay muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka dib u xuraynta deegaanka iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee isugu jira Gorgor Danab iyo sidoo kale qaybta 27aad guutada shanaad ee Hiiraan ka howlgala ayaa waxa ay wadeen howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyaga oo laba jibaaray howlgalkaasi isla markaana shabaab ka saaray deegaano aad u fara badan in gacanta ciidanka dib u xuraynta iyo kuwa dawladda ay soo gasho deegaanada Qandho Tardo Moora Ari iyo kuwa kale ayaa ka dhigan in gacanta ciidanka dawladda ay qaab dadban ugu jirto iyo kuwa deegaanka degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan oo todobaadii ka hor ciidanka dib u xuraynta iyo kuwa dawladda ay sheegeen in tactical ama xeelad dagaal ay uga soo baxeen gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed xildhibaan Maxamed Cabdillaahi Buraale Raaxeeye xildhibaan Cabdiraxmaan Gure xildhibaan Cabdinaasir Xaaji Shirwac iyo sidoo kale xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin xildhibaan Cabdulqaadir Maxamuud oo Bakar Dhagaweyne xildhibaan Daahir Cali Maxamed xildhibaan Guhaad Cabdulle Jimcaale iyo sidoo kale wasiirro uu ka mid yahay wasiirkii hore gaadiidka iyo dekedaha dawladda Hirshabeelle xildhibaan Faarax Gacmey wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle iyo saraakiil ciidan oo ka mid yahay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Maxamed Tahliil Biixi taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka General Tawane Axmed Maxamed iyo saraakiil kale oo ciidan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay tacticada dagaalka lagu qabtay deegaanadaasi ay dabcan ku howlanaayeen kuna sugnaayeen inay ku jaxjeexaan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ciidanka dib u xuraynta deegaanka iyo kuwa dawladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo saf ballaaran ah waxa ay ka wadeen gobolada Galguduud Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolkan dhaca bartamaha Soomaaliya ee Hiiraan waa Maxamed Ibraahim Siyaad telefishinka caalamiga ah ee Kalsan deegaanka Tardo gobolka Hiiraan